siduu rasuulku inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh maalin maalmaha ka mid ah saxaabadiisa ka mid ah ayay rasuulka kulmeen oo habeenkaas uu la soo joogay saxaabigu qiyaam badan iyo salaatuleyl badan buu la tukaday rasuulku wuxuu ku sigtay inuu saxaabigaa u sheego habeenkaa laylatulqadriga balse laakiin sidaabaa lagu riday waa la ilowshiyey idan mar hadday saa tahay xigmadda loo ilowshiyey waxayaan si dadaalku usii bato waayo habeenkaasoo keliya bay ummaddu soo kici lahaa xigmad baa ku jirta inta badanna rasuulku wuxuu yidhi ka raadiya 10ka dambe ee bisha Ramadaan 21ka 25ka 27ka 29ka marka waxa loo qariyay si loo dadaalo qofka bini'aadamku qofka muslimka cibaadadiisa inuu joogteeyo fiican dad badan baa Ramadaan iyo Ramadaan la'aan baa qiyaamul leyl u taagnaa balse laakiin waqtiyada aba tirooyinka rasuulka uu sheegay kala dhiman ayaa aad u fiican in lagu dadaalo meel cayimanna laguma sheegin qofku waa maalin adduunka dhan ilaahay waqtigiisa bilaha ilaahay uu kala sharfay uu kala karamay shuhur xurun baa jira bisha Ramadaan baana ugu fadlidan bilaha oo dhan ayaamaha iyo maalmahana waxa ugu fadli badan maalinta Jimcaha habeenadana waxa ugu fadli badan habeen amba sanad amba bil ha noqoto habeenka laylatul qadriga ayaa ugu sii fadli badan waayo habeenka waxa ka dhiganta cibaadaysataa inay ka ajar badan tahay cibaado aad cibaadaysanaysay intaasoo sano aad cibaadaysanayso laylatul qadri khayru min 1000 shahr intaasoo oo kun oo bilood ay ka fadli badan tahay subhanallah aad tiraada way ka fadli badan tahay subhanallah aad tiraado bilaha kale aba waqtiyada kale marka cibaadada rasuulku sallallahu rabbi wasalaamu calayhi uu laba jiray wakadalika saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam way u taagnaan jireen xadiiska rasuulka sallallahu rabbi wasalaamu calayhi Aisha ay leedahay habeenoo dhow wuxuu taagnaan jiray kufra lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara ay leedahay يا رسول الله رسولك إلهي يوم حسن سكوب دبيسا دنبيجا جهرية كي تبوا ولا قاعد عفين برسول رسولك إلهي أفلا أكون عبدا شكورا ميانا هين بيد مهنقة غير رمضان الرسول كساوت ذلك جري بس هبيك ليلة القدر جو كف اللي بدن هبينا ده محضو ملاين قفك مسلك ها وحلا جدبون وحيالا بدن با ولا جسوا كذا إن هبيك لو تيار جروبه وإلهي تبدأ فلو يتيستو وإلهي مرتلا هذا مرتب بدن أي رسول أي إلهي سبحانه وتعالى وهبيك هو مرتقاضية مركا الله نقدرجو كوا ودبدأ فينا هبينا ده كونا كف يستنا الله نقدرجو. واي أنت اللي قلت ربش بركة سنة رمضان وحجرها خلافات علماء قار حلقة تراويح ذا كله سيد علماء قادرين دو كنت كنشرت مساجد ذا لو عدد إذا علماء كلنا كنت كنشرين كوبيتون رعاض تحسب محا سوا شيخ ومثلا خلافية ويان واحد تيجي أفر مذهب الدين تينو كسر يسنت حنافية ذا شافعية ذا ما دام إنه من شافعية هاي وحنو كوكافسنا انت كويلا ترقعود استيو ترقعود لكن تذكر بابا مكبقالو ليش بابا وضمدا كله أبا مصر كله وي كبضيان با انت دونا بيتو كذا مركا مقيد مع قفكو رسولك وحلو لو كان وتركو هل رقعد باهاته وين تكتا ترى كلا دمن هل رقعد 3 رقعدود 9 رقعدود ترى كلا دمن ما بالا ربا وعدي awooddeedii dadaalkeeda dhalinyarta Soomaalidu inta ugu badan diiniyan marka la eego dadaal badan ma geliyaan xagga diinta iyadoo waliba aan la oran karin majority aan la eegi karin oo ay jiraan waxyaabo kale oo lagu mashquuliyo say culimadu sheegaan maxaad talo u jeedin leedahay maanta talahaan dhalinyarta waxaan kula talin lahaa in ay diintooda ay ku faanaan inay diintooda kor u qaadaan inta ay ka hadli karaan inay ka hadlaan sibahan walibana imika social media soo batay dad badan baa waxa jira dhalinyar badan aan diintii fahansanin waxaanay ku xirantahay qof walba diinta sidoo u bartay kullu malcaamada la soo wada maray kullu maxada la soo wada maray qof iyo iimaankiisa ay ku xirantahay dhalinyartan dambe social media aba TikTok aba aaladaha kala duwan la isticmaalo waxaad arkaysaa diin yaraan ka jirta iimaankoogi baa daciifay marka dhalinyarta ilaahay baa abuurtay waqtiga dhalinyarnimada qofku ku jiro waa waqtiga ugu baahida badan yahay waa waqtigu ilaahay eegayo inta badan Soomaalidu waxay ku cibaadaystaan ilaa 60 jir wixii ka sareeya waa fahan darada diineed ka haysata xagga dhalinyarta marka dhalinyarta waxaan kula talin lahaa waxyaalaha kalaba wadu bareedhaano imika waxaba luuqada kalaba soo baxda dhalinyarta waa la soo qarxiyay hebel hatta caabihii muslimiinta ila qariyaan ahayd ayaaba imika aad moodaaba in lagu faanayaba marka waxaan oran lahaa
dhalinyarta miidiyaha ku badan diintu waxa leedahay muxtaram afkaaga oo dambi kugu soo jeeda afkaaga oo ku xidho kuna furi waa lago baa la dhahdaa afkaaga ilaahay ha isku seegina rasuulka ha isku seegina diintu muxtaram bay leedahay diinta wixii aad ka sheegi kartaa inteeda wanaagsan inkastoo aanay lahayn badda in xun diintu ay nasteexatay marka dhalinyarta waxaan kula tali lahaa kula dardaarmi lahaa in ay diinta aad ay uga shaqeeyaan oo uga qayb qaataan sida imika faadkaari oo kale mawduucyada diiniga oo badan waa loo baahayay in lagu soo bandhigo waayo waxyaalaha kaleba waynu waxyaalaha kaleba dhalinyartu way u kala dheeraysa way ku faantaa qofku waa inuu diintiisa ku faana waayo diintu waa dhalashadaada keliya waayo muslim baan ahay aad afka ka tiraahdo ma wanaagsana iimaaniyaad baa lagaa doonayaa camaliyaad baa lagaa doonaya ilaahay wuxuu kuga adoonsaday lagaa doonayaa keliya islaamnimo keliya meel kuma geyn karto al-istamsis lillah inaad ilaahay isku dhibtaa la doonaya aad kaga cabsato wax walba ilaahay inaad maaha kaga cabsato bilaadan raali ahaanshaha ilaahay inaad raadisa ayaa fiican dhalinyarta waxaan kula dardaarmi lahaa in xagga diinta iyo cibaadada ay u bataan saxaabadii rasuulka iyagoo dhalinyara cabdullaahi mascuud cabdillaahi ibnu cumar iyagoo dhalinyar ay maamuli jireen intaas oo wadan ay maamuli jireen intaasoo xadiis ay rasuulka ay ka qabteen marka waxaa laga yaabaa xagga diinta doorka dhalinyartu inay ka maqan tahay waxaa jira dhalinyar badan oo iyaguna xagga diinta bartay maxadda ka baxa laakiin way baqanayaan aba way habranayaan aba way qajilayaan maaha wax risaaladii ugu weynaad adduunka ugu qaalisanayd bay sidaan dhalinyarta maxaddada ka baxaysa waa inay gudbiyaan maaha inay baqdaan cilmiga barteen waa in ay ummadda u gudbiyaan maaha inaad wax walba dhamayso sharti kuma inta aad garanayso walow kaana aayabaha noqotee waa inaad ummadda gaarsiisa aad gudbisa aad ka habran miidiya waxa ugu badan ba way ku yaryihiin ba dhalinyarta culimada maxaddada ka bartay intii kalaa ka badatay la kala dheeree orsa maahe waxa fiican la dadaalo oo diinta dadaalkeeda la xoojiyo inaasaa kusoo koobi lahaa dardaaranka way waxaad tiri aaladda tiktok yacni saameyn badan bay dhalinyarta soomaalida ku keentay xagga diinta saameyn ma ku yeelatay tiktok way ku yartay baan odhan karnaa way ku yartay waayo rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu alay wasalam ya'ti zamaanun waqti baa iman doona buu rasuulku leeyahay diintu ay ku bilaamatay qariib ay qariibna ku gabagaboobayso waayo waxaad dareemaysaa inay diintu ku yartay aaladii oo dhan macaasidii loo soo bambaxayo oo aan lagu dhigiranayo oo aan lagaba qajilinba sheekhina waxaa laga yaabaa inuu intuu laba xadiis uu sheego uu amba waxaan dee laygtiyo wax la tiriya aan meel baan falow badan baanu helina maanta dambana uu niyad jabo maaha inuu niyad jabo keliya waa inuu qofku ku celceliyaa intuu wax sheegi karana waa inuu sheegaa dadaalka diinta in laga wada qayb qaato waa waajibna wada saaran kulligeen inaasu baa kusoo gabagabeyn lahaa wasalaamu calaykum